Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya ku qaabilay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Shiinaha. Madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee Soomaaliya iyo Shiinaha. Sidoo kale, labada dal ayaa adkeeyay mowqifkooda ku aadan ixtiraamka qarannimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya iyo Shiinaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Shiinaha inay ixtiraamayso Soomaaliya midnimada dalka aan saaxiibka nahay ee Shiinaha. Dhankooda, dowladda Shiinaha ayaa madaxweynaha la wadaagay sida ay uga soo horjeedaan xadgudubka Taiwan ay kula kacday qarannimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Shiinaha ayaa dhankiisa ku celiyay sida ay dowladda Shiinaha uga go'an tahay dhowrista qarannimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.